بسم الله الرحمن الرحيم لبدي مارسو 2023 markan waxaan joognaa xaruntii shalay goobtii shalay wiilkii dhibanaha ahaa ee marxuumka ahaa uu ku dilay eedeysane Cabdirasaaq Nuur Qanjey oo hadda garabkayga taagan inta badan waxaan noo faahfaahiyay taliyaha booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle Korneyl Xasan Dhiciso Xasan laakiin waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoliyaha bajaajileyda iyo dadkii ehelkii uu ka dhintay dhibanihii uu ka dhintay lagu magacaabi jiray Daahir Ibrahim Abshir ina Maka Cali oo halkan aabihiis Ibrahim Abshir uu nala taagan yahay inaan ummadda Soomaaliyeed saaxiibadiisii ehelkii iyo qaraabadii baan u muujino in eedeysanihii wiilka dilay gacanta lagu soo dhigay hase yeeshee sida warbaahintu ay u baahiyeen ama dad goobta joogay u baahiyeen aysan ahayn waxa kale toorna ummadda Soomaaliyeed inaan u cadeyno inaana beenino inaysan jirin qof ciidan ahaa oo dilay wiilkaas yar ee bajaajlaha ahaa waxay ahaayeen dad saaxiibo ah oo isla socday marka sida korneelkuba sheegay in ciidan u yaal ah oo askari u yaal ah ayuu ahaa eedeysanaha hadda garabkayga taagan oo dilay dhibanahaas ee marxuumka Allah u naxariisto waxaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynaynaa sida korneelku sheegay in eedeysanuhu uu ka baxsaday goobtii falka uu ku geystay wuxuuna u cararay gobolka Shabeellaha Dhexe arrintaas waxa iska gaashaday booliiska taliska booliiska qaybta guud iyo booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle oo labaduba ka wada tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa halkaas cashir ka qaadan kartaan ummadda Soomaaliyeed in eedeysano kasta oo faldambiyeed gala isla markaana la hayo maragiisa iyo warbixinadiisa uu ku baxsan doonin ciidanka booliiska Soomaaliyeed dalka oo dhan daraf meel kasta uu joogo iskaashiga ka dhaxeeya waana la iska kaashiyaa la iskana gacan siyaasad oo qabashana eedeysanayaasha noocan ah bajaajleyda saaxiibadiis iyo dadkii ehelka ahaa ee marxuumka shalay uu ka geeriyooday waxaan u sheegaynaa in eedeysanihii hadda goobtii wax ku dilo uu taagan yahay muddo 24 saac gudahood ah sidaas la egna cadaaladda la horgeyn doono cadaaladda la waafajin doono waa ka xunnahay in dadka la dilo ciidanka guud iyo dhacdooyinka ayaamahan dambe socdo dhamaantood waxa jooga reform iyo waxa jirta wacyigelin lagula xisaabtamayo maantay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed sida aad ka aragteen warbaahinta taliyaha ciidanku wuxuu isugu yeeray dhammaan fadhiyada iyo hogaamada madaxa banaan taliyaasha fadhiyada iyo hogaamada madaxa banaan waxa ka soo baxay awaamiir iyo faritaano cad oo quseeya in eedeysanayaasha dadka faralka noocaas geystay dhinac looga soo jeesto isla markaana go'aano cad oo ummadda Soomaaliyeed indhahooda ku arkaan ka soo bixi doona qof dareys ama hub wata ee fal geysta inuusan mar dambe dhici doonin Ilaahay idinkiis kii falka geystana cadaaladda horgeyn doono ciidanku idinkay idin shaqeeyaan idinkii garba idin yihiin waxa ka soo baxay amar cad qof kasta oo dambiga noocaas galana biidnillaahi baari cadaaladda hortagi doona Cabdirasaaqna eedeyntaas lagu hayo cadaaladda la horgeyn doona ehelkii dhibanahana waa nala taagan yihiin indhahooda marqaataha u noqdaan ummadda Soomaaliyeed iyo bajaajleeduna marqaataha ka noqdaan sidaas bajaajleedana waxaan ka codsanaynaa marka falan noocaas ay dhacaan inaysan iyaguna amniga culays ku sii noqonin oo shaqal abuurin waajibkaas ciidanka booliiska hay'adaha kale ammaanka iskale waa la soo qabanaa eedeysanaha falka geysta cadaaladana la horgeyn doonaa waa maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh